والله مدحوين شيء كليا عن ضكية عن كبد اللحوي الفرع اللحوي ومن انت بدأ فين اللي فانت اللي فانت احنا عندك عارف الله مقرر كافين بقى بسم الله الرحمن الرحيم marka hore intaan warbixin ka siin muxuu aan magacayga aan sheegin iyo muxuu warbixin aan iska bixin waxaan jecelahay inuu mahad celiyo mulkiilaha channelka aqoon guud injineer Cabdi Xafiid oo ugu martiqaaday barnaamijka inta kadib haddaan soo gudbo magacayga waa Muxtaar Cawil Xirsi oo ku magac dheer Khayre waxaan ku dhashay Hargeysa ku soo barbaaray Hargeysa barashadiisa dugsiga hoose iyo tii dhaxaba ku qaatay Hargeysa iskuul ilaa Sheekh Madar dugsigii si sarana ku qaatay iskuulka Leedaa Nuuruddin ku yaala qaybta Jijgeer kadibna waxbarashadiisii soo ayaamay jaamacadeed wadanka Bangladesh caasimadiisa Dhaka halkaana ka sii bilaabay Dhaka International University faculty-ga ambatana waxa weeye waa electrical electronic and telecommunication engineering major-keyguna waxa weeye waa electrical iyo electronic oo socda Bangladesh waxaan imid taariikhda markaa ahayd 2016 bishii 6aad afarteedii waxaan jacadii dhameeyay 2019 December inta waxa jirtay xaalad corona waxa jira oo xadibay caawana waxaan idin safro oo dalkii hooyo ku wajahan insha Allah waxaan rajaynayaa in safar khayr qaban aan la kulmi doono haddii aan ka yar warramo dhacdooyinkii ugu yaabnaa BD urtu sideedaba qofka ku nool waxa laga yaabaa qofka ku nool uu fahmi karayaa waanu dareemi karayaa BD sideedaba iyada muxuu ay dhacdooyin socda maalmaha caadiga ah oo dhacdooyin la kulmisa marka hadda xasuusto dhacday mid kamid dhacdooyinkii iigu la yaabka badnaa ee intaan joogay halkan waxay ahayd maalmaha kamid ah aniga iyo inaan saaxiibanahay oo suuqa ka nimid oo alaab wax soo iibsanay ayaa markaan suuqan ka nimid ayaa soo dhacnay bas ma soo dhacnay waxaan maleeyahay 2016 bishii 9aad bishii 8 marka xasuusto tahay marka aad xilligaas ay ahayd suuqan ka nimid alaab wax soo iibsanay waxaan maleeyahay buugaag wax soo iibsanay kadib waxaan soo cunay inaan xaafadii aan tagno bas baan soo kaxaysanay baskii sidaan u wadanay baskina uu noo waday ayaa dhacay sida waddanka joogna sideedaba waa wuxuu caadi u leeyahay bayna jaamka iyo macnaha nolosha waqtiga laga meesha tagisi saacad ku qaadan lahayd waddankeeni in 5 saacad ku qaato ama 4 saacad marka xaaladaha jaamku waxa xaalad iska jirta marka aad marka baskii aan soo qaadanay uu xogaan soo waday ayaa waxa jirta meel xaafadeeda marka loo socdo wado u train maraa jirta tareenkaas markuu soo maray muxuu ahay baabuurta iyo basaska wala joojiyaa iyadoo waxa dhacay marka baskaygii uu doonayay inuu muxuu ahay uu istaago meesha agteeda si uu u dhaafo muxuu ahay baalki oo tareen ku dhaafo ayaa wuxuu sidii ninkii muxuu ahay darawalka ka gaarsiiyo baasmare gaarigii wuxuu ku xumaaday muxuu ahay wadadii uu tareenku marayay dhexdeedii ku xumaaday maaniga waxa ka dhacday in magaaladii iyo dadkii halka hore fadhiyay ay soo yaacay halka dambe aniga iyo ninka saaxiibahayna halka dambe fadhiyay aanu u yaacana halka hore meeshii waxa dhacay in jawigii aan ku sugnayn in markii isbedelay in waqtin in laga yaabo in uu sii dhawaanay dhinaca geerida oo waxbarasho soo doonay in geeridu uu sii dhawaanay adoo aakhirkii dad baxta waxay sameeyeen carreen bay wax ku carreen ninkii gaarigooday ee darawalka ay lahaayeen waxay sidaa ma leedahay baskii tareenkii uu soo socda oo gooxiisii uu soo dhawi marka xaaladdaas ay igu la yaab badnayd laakiin Ilaahay waa naga badbaadiyay oo gaarigiisii muxuu ay wixii Ilaahay qofka uu u qoray ma dhacaysa inuu si fudud aan ku baasmareynay marka dhacdaas waa dhacda aan loo gudoonin oo taariikhda muxuu ay meel weyn ka gashay waxaan jeclahay in ardayda Soomaaliyeed halka wax ka baranaysa intii isku fiilaba inay macnaha caawiyaan oo mar walba iska warhayaan oo ardayga muxuu ay hooseeya ama ardayga sareeya ardayga dhexda ku jiraan aan jeclahay mar walba ay iska warhayaan ay sameeyaan muxuu ay wadatin mar walba ay washaqayaan marka taxafilan mar walba waxaan jeclahay ardayda ay mar walba iska warhayaan buugaagta akhriye buugii saameynta badnaa weey inta badan aan waxaan haynin ku xiran muxuu ay buugta fiilka uu baranayo electrical iyo electronic marka waxaan ka buugii saameynta badnaa weey buug la Alexander Siduku oo inta badan foundation ka muxuu ay ardayda marka ay bilaabayaan electric buuga labaad oo ICC soo raacana xawey buuga isna dhaafay keenata oo power system kii hawlaha ka shaqeeya marka labada buug oo la labada buug ee igu saameynta badnaa haddaan noqon lahaa madaxweyne shayga kaliya aan dadkayga aan ka bedel lahaa
waxaan la dagaalami lahaa waxa loo yaqaan muxuu ahay bafartiga oo waxaan sameyn lahaa in muxuu ahay qorshe cad aan ka yeesho sidii muxuu ahay inay dadkii looga saar lahaa inay gaajada iyo muxuu ahay iyo duruufta marka waxaan sameyn lahaa timeline ama muxuu ahay qorshe cad oo sidii lagu bixi lahaa waxa loo yaqaan bafartiga qofku way ku adkaanaysaa oo maleynaya haddii lagu naftaada wax ka sheeg ama naftaada qeex waxa fiican in isagu inay dadka badanta iyo bulshadu ay sheegto taasa fudud laakiin haddii ay ka furso weydo waxaan oranayaa waxa weeye Mukhtaar Cawiil waxa weeye waa nin inta badan jecel inuu dadka inay ku dhex jiro oo dadka la shaqeeyo talabaad waa nin jecel muxuu ahay mar walba inuu waxyaabaha sarsare ama hamiga sare inuu mar walba uu gaaro oo wixii hami sare uu leeyahay ama muxuu ahay mar walba meelaha sare inuu ka soo muuqdo jecel tasdaxaadna waxa weeye nin waa wanaagsan oo hambaro oo dadku aanay ku kala socnayn oo macnaha aanay ahayn dadii qofkii macnaha title sare ama qofkii aqoon sare leh inaan si gaar ah u ixtiraamo qofkii kale aan inta ahayn inaan isna aan ixtiraami maaha qof ismali yahay qof saasa tahay qof ay dadka oo dhan ay u sameeyeen baato bulshada yani si fiican ku dhex jiro oo si fiican loo dhaqmo wallahi obdigaygu way badan yihiin laakiin haddii mid keliya aan ka sheego waxa weeye waxaan jecel safarada iyo dalxiiska haddii ay noloshu tahay buug inkastoo noloshu ay iska waayo badantooda nin kastaba muxuu ahay waayihiisu haysto iyo waqtigiisu laakiin waxaan lahaa nolosha waxaan u bixin lahaa maadaama ay gebigeedu tahay nolosha imtixaan waxaan lahaa waxa weeye waxaan lahaa muxuu ahay waayihii adkaa wallahi taladii ugu badnaayeen talooyinkii aanay leysiyey maadaama aynu qof kasta oo bini'aadmiyo u baahan yahay talada weyn ku noolahay waxaan oran lahaa taladii ugu wanaagsaneed ee leysiyey waxay ahayd oo aan isleeyahay aniguna muxuu ahay dhaqan bay noqotay inaan muxuu ahay qofka aan asxaabtana ama qofka aan iskaranayba wixii aan ku tali karo inaan ku caawiyo macnaha inaan dadka caawiyo oo wixii awoodeyda ah ee karaankayga inaan ku caawiyo haddii la yidhahdo dictator ama macnaha keli talsnimo oo waxa Soomaalideena hadday nahay qoomiyadda Soomaalida waxayba dibka inoo dhigay marka ma jecelina aan ku sifoobo laakiin haddii ay ka fursan weydo ay noqoto su'aal ku jirta barnaamijkii dan keli talis noqonaya mid dictatorship waxaan sameyn lahaa kullu waxaan jeclaan lahaa in meesha aan u sii joogi lahaa marka waxaan sameyn dhalinyarada iyo soo kacaysa dhalinyarada bulshada soo kacaysa inaan geliyo ciidan military oo awoodda saari lahaa waxbarashadii waxa intaan ka saaro tababar mar walba military oo si muxuu ahay special muxuu ahay loo tabaro mustaqbalka waxaan jecelahay inaan ku noolaado magaaladii aan ku dhashay ee jecelahay inaan ku noolaado magaalada Hargeysa meel aan booqdo meesha iyagu xisaab badan waxa weeye xeebta adduunka ugu dheer oo ku taala waddankan aan joogno ee Bangladesh loo yaqaano Cox's waa xeebta adduunka ugu dheer taasaa igu xisaab badnayd taasaan jecelahay mar laba aan booqdo haddii aan waqti aan u heli lahaa magacayga haddaan bedeli lahay magac cusub oo la bixi lahaa waxaan la bixi lahaa magacayga naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee nabigeenii suubanaa Maxamed baan la bixi lahaa my favorite team inkastoo aan taageero laba team laakiin my favorite team hadday noqotay waxaan dooranayaa Barcelona Argentina waa laba ciyaartoy aad taageera oo xiiseeya وانا ciyaartoy la Francisco Totti oo ciyaaraha ka fariistay iyo ciyaartoyga ciyaaray Lionel Messi marka hadii noqon wiido mid la dooranay waxaan dooran lahaa Lionel Messi Black Ford kuwi waxaan dooran lahaa Allahu xariisto Maxamed Salmaan Tabeec finankii weynaa boqorkii codka kuwan dambana waxaan jeclaan lahaa on xiiseeya Maxamed Saciid Biki marodiga baastada PlayStation oo film series waxa oo dhawaan daawaday waa filimka Elite Blue Ronaldinho Neymar London Real Madrid Levante Adidas CNN Africa habeen
شاح شوارما خبرة experience ايفون فلاي مرض مقدشو my home دلمندي waxaan jecelahay inuu mahad celiyo injineer Cabdixafiid oo barnaamijkan igu marti qaaday aad iyo aad baan leeyahay maasan tahay injineerka Cabdixafiid marka labaad waxaan mahad celinayaa laba nin oo halkan caawina la jooga injineer Cabdulla Curad waana injineer iyo nin abwaana oo labada xirfadood leh waxaan kaloo jecelahay inuu mahad celiyo injineerka weyn Cabdikaafi Maxamed Ismaaciil laakiin Cabdikaafi looma garanayo كافو بالله مرة سجلنا من عليا ما أنا أصحابتي بيدي أنا سكرني أنا كان أنا كولا لو نكو صاحب تنوني سيجارة ما هو ما عليا تذكي أنا كان أنت نقول شغلي أنا بحضر شغل سوي لأني أتي نقطة أرضي الصومالية أو مساعدة وريت لي سيجارة يجي أو ما عليا تعصوات الواحد قوي ما عليا عيد كستان وأقوم لأني أنا أتليس وحوم يعني وحشر قريلي يا أصحابتي جودة محلية إن شاء الله إنه لكم أنت waxaan namaanteedba inoo rajaynaa nin walba inuu gaaro hamigiisa iyo wax uu rajaynayo insha Allah waxaan leeyahay nooli kulantay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.